Assalaamu calaykum kusoo dhawaada kanaalka Kobciye. Fadlan ha ilaawin inaad like, share iyo weliba subscribe ku caawisid channelka. Muuqaalkan maanta oo iska kooban waxaynu kaga hadli doonaa sababihii keenay guushii duulaankii koowaad ee Saliibiyiinta iyo wixii dhacay kadib duulaankani. Xaaladda bulsheed iyo siyaasadeed ee ka jirtay bariga caalamka Islaamku waxay ahayd mid ka mid ah sababihii ugu weynaa ee ka caawiyay Saliibiyiintu inay guul ka soo hooyaan duulaankoodii koowaad ayna samaystaan imaaradihii Laatiiniga ahaa. Khilaafkii ka dhexeeyay gudaha qoyskii boqortooyadii Salaajiqada iyo u baratanka dhaxlidda boqortooyadan weyn ayaa inta ugu badan ka caawiyay ku nagaanshaha Saliibiyiinta ee dhulka Shaam iyo weliba inay cabsi iyo argagax geliyaan bulshadii muslimiinta ahayd ee halkaasi ku dhaqnayd. Xaalku sidan ayuu ku sii socday ilaa intii ay ka soo baxeen rag wanaagsan oo Ilaahay gacantooda ku soo celiyay haybadda Islaamka oo ay ugu horreeyeen qoyskii reer Aalasanki kadibna ay xigeen qoyskii Ayuubiyiintu. Aalasanki waxay ahaayeen qoys markii ugu horreysay soo baxay xilligii boqorkii Salaajiqada ee Malikshaah. Awowga ay ku abtirsadaan qoyskan oo lagu magacaabi jiray Aaq Sanqar waxa uu ahaa mid ka mid ah addoomaha Suldaan Malikshaah isagoona agtiisa ku soo barbaaray. Kadib markii Malikshaah uu xukunka Salaajiqada la wareegay waxa uu Aaq Sanqar ka dhigtay mid ka mid ah hogaamiyayaasha ciidankiisa iyo weliba la taliyayaashiisa u dhow sababtoo ah kartida hogaamiyanimo iyo geesinimada uu muujiyey. Ugu dambeyntii waxaa Aaq Sanqar loo magacaabay barasaabka magaalada Xalab kadib markii wasiirka suldaanka oo lagu magacaabi jiray Nidaamu Dawlah uu ku qanciyey inuu jagadaasi u dhiibo. Xilkan ayuu hayay ilaa uu khilaaf ka dhex dhacay isaga iyo Tutush ibnu Arab Arslan kaasoo ugu dambeyntii ku dhammaaday dilka Aaq Sanqar sanadkii 487 Hijriyada, kamana tegin wax carruur ah ilaa hal wiil oo yar oo 10 jir ah kaasoo taariikhdu u xusi doonto Imaadudiin Zanki.